السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته كلنتي wanaagsan mar kale saaxiibayaal meel kasta aad joogtaan ba halkan waa Mustafa Show aniguna waa Mustafa mar kale soo dhawaada barnaamijkeennii malabka qaybtiisii shanaad waxa qoray Cabdullaahi yalla cartan oo qoray degan dalka Jarmalka waxa inoo joogtay iyadoo uu markaas soo aaday guriga saaxiibadiisa isla markaana uu soo galay cabaar kadibna ay su'aal isweydiiyeen casheeyeen isla markaana xilligii tareemadiisa iyo basisku ay go'ayeen gaadhay isla markaana aanu ka tagi kareynin bal in uu tagana aan qorshe ugu jirin sidoo halkan ku joogi lahaana uu falagooda ku jiro anigu iminka waxaan ka fikirayaa sidii ay suuragal ku noqon lahayd inaan halkan seexda ayuu yiri iyaduna jawaabihii bay iga sugaysaa cashadii baan u dhamaysanay waxa igu tiri qolka ma ku sheekaysanaa ha xabiibtay inagee ayaan aniguna ugu halceliyay waxa igu tiri mar kale jawaabihii baan ka sugayaa hawraarsan horta gabadha asxaabun baanu nahay baan yiri marka aad wada hadlayseen de sabab aan anigu ku raaco ma jirin adiga oo laba dumar ah waa ahaydeen oo wada hadlaya marka in aynu gabadha isugu tagno meesha ma ay oolin adiguna aniga waxba imaad weydiinin gabadha uun bad afka iskala gashay inta kadibna waad nagu xanaaqday markii aad tagtayna jaakada ayaan dabcayna ka soo daba qaado kadibna inta gacanta qabatay oo gacanta igu dhigtay bay igu tiri waxbaan ku sheegay walaal sug marka maxay ku sheegaysay ee baas ayay laki weydiisay Cabdulle inta aan qoslay ay sida ay isleedahay baan ku ri bal fadhiiso horta xabiibti fadhiga qolka dhex yaalay baanu fadhiisanay oo laba qof loogu tala galay kadibna waxa aan ku ri xabiibti tareemada iyo basaskiiba kama gaadho oo way go'een xilligan ee maxaa anuguna sidaan hore idinku sheegay inaan seexdo ka fursamayso xilligan ismaba ay dhibin ee sariirta ay gacanta igu tilmaantay oo igu tiri halkaas ay seexanaysaa caawa aniguna waxa aan ku weydiiyay iga jawaab gabadhu halkay degan tahay magaaladan ha ayaan ku wari magaalada ay degan tahay ka waran hadii aynu la wada hadallo oo aynu berito la kulano ay laki weydiisay Cabdulle yaa oo maxaynu ka doonaynaa ee aynu la kulmayna laki waxa idinka dhaxeeyay ayaan ogaanayaa bay tiri ama aan xaqiijinayaa waxba nagama dhaxeeyaan aniga miyaad igu kalsoonayn ayaan anigu mar kale iyada weydiiyay haddaanay waxba jirin maxaad u diidaysaa ee waliba qadaynu u sameynayna oo halkan bay inoogu imanaysaa ayay laki tiri waayahay ayaan aniguna ku yiri oo aynu wacno telefoonkeeda keen aniga wacaya waan u sheegay oo waa ay ku dhufatay daqiiqadiiba telefoonkeedii waa u dhacay ilaahay ay qaban weydaa ayaan aniguna niyada ka leeyahay buu leeyahay Cabdulle iyadina waxa ay leedahay war mid khaldan baad ii sheegtay may xaraan iyo nijaas bay ka tahay macaan aniga miya adiga number khaldan ku siin kara intii aan wada hadlaynay ayuu baan halo maqlay ka gabo wadnaha ayaa afka yimi oo wadnuhu inuu afka soo dhaafo ayaan ka baqaya ha walaal waa gabadh la yiraahdo laki oo aad galabta isku aragteen maqaaxida Cabdulle aad la fadhiday ha waan ku kartay maxaad u baahan tahay aan ku qabtaa ayaa laki la weydiiyay walaal adiga ayaan ku rabnaa aniga iyo Cabdulle oo meel baan oo waanu wada joognaa halkan dhinacaygana waa u fadhiyaa hiq miskiinti meel baa gooday waa sida uu isagu dareenkiisa ku cabariyo hadalkiiba ka soo bixi waayay aniguna waa aan dareemaya buu xanuunka markaasi haya bal ka waran qofka aad jeceshahay oo qof kale habeen badh la jooga oo ka soo waca waliba qofka aad jeceshahay ama qofka jacaylku hayo ayuun baa garan kara qalbi jabka inta leeg hadalkiiba ka soo bixi waayay maxaa ku aamusiyay ayaa la weydiiyay oo ay laki intii weydiisay waxa ay tiri bal iigu dhiib adiga isaga walaal haday dhab ka tahay oo uu kula joogo waxay tiri waa macni iska hubi ayay isleedahay hoola hadal inanta ayaa la igu yiri adiga ayay ku rabtaay Allah gabadhani dhib badana baan hoos u leeyahay runtii waan qalbi jabsanahay oo inanta miskiinta ah waan la dareenahay ee iminka lagu diganayo ha walaal baan ku iri war xageed joogtaa miyaanad bixin ayay igu tiri wa hadal khalkhal runtii uu ka keenay oo dhinacu haystaba aan la garanaynin aniguna qaab dibacsan baan u hadlay baan hadalkaygii ku soo koobay tii kaleba ayadu xanaaqsan ku tii war gabadha noo ballami iga walla inaan loo kala kacayn dhanuun bay u dhacaysaa niyadda waxaan ka leeyahay bari bal maxaynu u ballansan miskiintan ma inaynu silcino oo ku jeesjeesno oo aynu u sheegno inaynu isjecelnahay ayaa doonaysa aniga qalbiga isaga jawaabaya oo leh ha intaasun bay rabtaa ee wax kale ma rabto war maxaa ku aamusiyay baan ku war helay iyo waliba iyadoo la gilgilayo oo le runtii tagaysaa iga walla riwaayad dambe inaanad noo jilayn ee gabadhan noo ballami barito inantii wali khadka ayay si toos ugu jirtaa waxaan ku iri bari walaal wad noo casuuman tahay ee ka waran hadaad noo timaado haye ayay igu hadcelisay iyo hawraarsan galinka dambe noo imow ayaan aniguna ku dhahay adreeskii guriguna waa kaas intan WhatsApp-ka ugu diray haye habeen wacan baan isku maca salaameyn xanuun iyo jacayl daran ayay dareemaysaa aniguna saacada la joogo xalaalo waxaan u qaban karaa ma jirto aniga oo og jacaylka iyo dhibtiisa tii kale oo dhinacayga fadhida ama laki oo dhinacayga fadhida ayaa igu tiri war horta maxaad isla nasakhdaa markaad inantan la hadlayso waxaan ku iri xabiibti waad i jeceshay Soomaa ha aad oo weyn waliba imise sano ayaad i jeclayd 3 sanadood okay haddii aad i weyda ka waran maba aqaano bay tiri noloshaydu siday u fool xumaanayso mana sawiran karo qaabka ay noqonayso inta ay waliba si dabacsan ii soo eegtay
aniguna si naxariis leh baan indhahayga dhinaceeda ugu eegay waxay igu tidhi xabiibi iga daa eegmadan badan waxaan ku idhi qaali gabadhani 10 sannadood in ka badan ayay ii sheegtay inay jeceshahay intaasba oo ay dusha iga eeganaysay maalintii dhaweyd baana ii sheegtay arrinkaasi aniguna wax aan walaaltinimo ahayn oo naga dhexeeya ma uu jirin oo dhinacayga ah bal qof noocaas ah ee sidaa u dhiban miyaad berri ballamisay oo rabtaa inaynu ka maadsano oo ku dheeldheelno oo markaa adiga maxaa ku shidaya ayaa cabdalle ay laki weydiisay maxaadse soo wadaa oo aynu samaynaa inta ay dib u fadhiisatay oo wejigeedii uu isbedelay oo waxa aan soo wado iyo webiga yaaweyn laga dareemi karo waxaan ku idhi horta anigu adiga ayaan ku jeclahay waanad ogtahay qofka aan kugu bedelanayaa ma jiro noloshaadana kama tegayo adigoo aniga iga taga mooyaane laakiin kaama aqbalayo inaynu ku ciyaarno gabadh sideenna oo kale dareen leh oo jecel inaynu ka maadaysanana ma soconayso gabadhii inoo ballami berri way inoo iman berri ee si wacan baynu usoo dhoweyn uguna warrami waxaynaynu isku dayeynaa inta qof bili-aadana la qanciyo inaynu qancino oo ixtiraamno oo wanaag badan u samayno adigana hinaasahan iyo sheekadan wareerka ah bal dhinacaad uga baxdid oo mas-uuliyad badan iska saartid sidii qalbiga walaasha aad u ilaalin lahayd runtii markaan hadalladaas ku hadlay buu yidhi cabdalle jawigii laakiin waa uu isbedelay oo mid qiirale buu isu bedelay runtii gabadhan waa gabadh qalbi fiican oo kalsooni badan leh laakiin markii hore unbay aniga iga yarbacowday waa qof maskax furan oo 3 sannadood ee jacayl wadaagga aanu ahayn noloshayda wax badan bay kusoo kordhisay hadday noqon lahayd talo iyo tusaaleba waxay igu tiri waan kula qaatay xabiibi wax kasta inantana waynu soo dhoweyn niyadana waynu u dhisaynaa ee aniga intaas igu hadle laakiin xabiibi waa kowdii habeenimo faldan ma seexanaa hadda berri 6 subaxnimo ayaan shaqo tagayay haa ayaan ugu warceliyay waxay tiri xabiibi adigu sariirtayda yar iska seexo aniguna kursigaas fadhiga ayaan seexanaya may aniga ayaa kursiga seexanaya baan ku yiri wayse iga diiday oo waxay igu tiri ogow inaad marti tahay marihii baan iskala baxay oo waxaan damcay inaan soo maydho laakiin macawis iyo tuwaal iyo shugmaantoona ma sito iyaduna waxbay baadhaysaa halkaasi gabadhka ay dharka gashato aniguna waxaan ka fikirayaa tuwaal iyo macawis ileen iyada kumaan ogeyn inay guriga u yaaliin waxay ii soo taagtay dirac nooca shiidka loo yaqaano oo diilimo madow iyo cadaan isugu jira leh waxay igu tiri iska qabo waa macawis abu zaranda ah intii aan qoslay baan ku yiri haye shaambo iyo shukumaana maad igu dari diricii baan macawis ka dhigtay tuwaal iyo shaambona waa i siisay suuliga ayaan tegay oo waan soo maydhay kadibna waxaan soo laabtay miskiintii oo kursigii ku gamaaday intii aan suuliga anigu ku jiray ama ku maqnaa waxaaba ma i huwanin oo qabow daran baa jira bustihii iyo go-ii iyo sariirtiiba aniga ayay isu kay dul saartay intii aan waxaan huwin karayay huwiyey ayaan iska jiiftay aniguna intii aan hurday ayay jarmaaday oo dhinacii shaqadeeda ayay u kala haday markii aan dhowr saacadood hurdada iyada kaga dambeeyay ayaan ku toosay gambaleelka guriga oo aad loo tumayo markaas baan moobilkayga eegay oo saacadda ama goorsheegtu waxay sheegaysaa 10 iyo 27 daqiiqad oo subaxnimo waxaan is idhi yuu noqon karaa qofkani ileen iyaduna furihii way sidatee talow maynantii ayaa idinku soo kala lahday mise waa cid kale aniguna ileen guriga khalad baan ku seexday gabadha lahaydna way maqan tahay oo dad kale oo iyada doonaya inay igu soo galaanna dhib baan u arkaa intii aan yara fikirayay ayaa jeliska si aada loo soo garaacay oo gambaleelka si aan kala joogsi lahayn ayuu u dhawaaqaya gooraan boodayba ma garanaya anigoo dirici jiidka ha guntan ayaan gacanta ka saaray jeliskii waxaan ku yiri hello waa kuma waa aniga ayuu igu jawaabay ee iga fur waan ka furay aqalkuna waa dabaqa sare sidaan hore idinku sheegay intii aan sugayay ama aan ka fikirayay muxuu ahaa ninkani aan isweydiinay su'aalahaasi ma qaraabada mise waa jaarka waabu soo gaadhay kadinka oo aan taaganahay waan ku salaamay in adeer ayuu hadalkii ka bilaabay aniguna waan kaa qaaday iyaan ugu warceliyay wuxuu gacanta ku sitaa ubax cas oo kuus ku xidhan iyo alaab kale oo kaadoo lagu soo duubay oo aan hadiyad ahaan u fahmay inta uu soo dhaafay buu gurigii iska soo galay si kalsooni badan ay ka muuqato qolkii iyo kijadii buu eegay in la joogo kadibna waxa uu yiri hello lucky meeday waxaan ku way maqan tahay wuxuu ugu xagee jirtaa waxaan ugu jawaabay waa su'aal aan jawaabteeda iminka aan ku haynin inta uu sidaa ii eegay buu yiri wayuu kijadii u dhaqaaqay aniguna qolkii baan galay oo waxaan arkay in ay xaaladdu adkaatay kadibna surwaalkii baan degdeg u xidhay iyo shaarkii intii aan soo baxay baan labadeedii kabood ee buurka ahaa oo halkaasi qolka hortiisa ayaa la soo qaatay kadibna jikada ayaan ka daba galay kursi isaga kasoo jeeda ayaan ku fadhiistay lama hadlan ee kabahaygii ayaan iska xidhay kuye ma inankii cusbaa ay ilmaadeerka ahaayeen baa tahay ee ay habeenkii dhaweyto ii sheegaysay markaas baan qoslay oo ku yidhi ma aad baad u xiisaynaysaa inaad ogaato qofka aan ahay kadibna intuu yar aamusay buu igu yidhi sigaar ma cabaysaa adigu sigaar ma cabaysaa markaas baan ku yidhi kafee baad ii samayn kartaa haddaad awoodo laakiin sigaarka ma cabo waxa uu yidhi wiilkii dagaal baad ku jirta ee saaxiib caadi iska dhig jacaylkayga ayaan booqasho kadiisa rabay in aan ugu imaado hadiyadahana u soo qaaday oo aan halkani ugu imid
gantaal ayuu wadnaha igaga dhuftay runtii oo jacaylkaygii ayuu ubax u sidaa oo weliba uu sharaxaya aad buu xanuun badnaa hadalkaasi daqiiqaduhu aniga igu lahaa haddana waa inaan ka jawaabo waa mid lagama maarmaana inta aan qosol iska yelyaala iska keenay baan ku idhi macalinkaagii ubaxaya kediska ku baray ma kuugu daray in jacaylkaagu ay qof kale jeclaan karto kadibna kii ay jeclayd oo gurigeeda hurda aad si kedis ugu iman karto inta uu aad u dhaxay oo jawigiisii uu isbedelay ayuu isaga oo weli iskijinaya igu yidhi weli kuma fahmin saaxiib maxaad ujeedaa waxaan ugu jawaabay dhibka ugu weyn ee ku haysta in aad fahamto waa qofka aan ahay ayaad hawl badan isku gelisay ilaa iminka imaad fahmin laakiin anigu waxaan sugayay inta aad adigu isu kay sheegayso waanad isu kay sheegtay inta uu isxanaajiyay buu yidhi war horta miyaanan af soomaali kugula hadlayn markaas baan ku yidhi maxaad u xanaaqsan tahay ubax iska soo qaadkaas ma markii kuugu horreysaba in aadan intii aanu ii jawaabin baanu maqalnay sanqadha albaabka oo la furayo labada iyadaba waa noo naxdin siiba aniga oo qalbiga ayaa hoos ii go-ay inuu hoos ii go-ay baan moodaa kolka qofka guriga iska soo furaysa waa jacaylkayagii aniga iyo ubaxleba okay qaybta shanaad ee sheekada malabka oo qoray Cabdullaahi Yaan la cartan intaasi ayaan kusoo gabagabeynaya halka kala socotay waa Mustafa Show saaxiib isku day bal inaad adigu laftaadu qiimeyso saacadan la joogo Cabdullaahi hadii uu isagu inan ku horwatay saacadan la joogo isagii ayaa lagu haystaa inantii kulli waxay maraysaa baraka male aniga laakiin waxa la xaqayga no comments bal idinku fikirkiina ayaan eegaya sidaas iyo kulanti dambe wassalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wa barakaatuh